waan idin salaamo dhammaan saaxiibada ku xiran channelkeena aad ayaan idinkaga mahadcelinaa sida wanaagsan aad ula socotaan muuqaaladan bartan soo dhigo soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago qaybtii afaraad barnaamijyadii aan kaga hadlayna qaar ka mid ah jilayaashii sagaashamiyadii caanka ahaa jira laakiin waqtigan la joogo la iska iloobay maanta muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa ama muuqaalkani waa muuqaalkii afaraad ee aan kaga hadli doono qaar ka mid ah jilayaashii sagaashamiyadii caanka ahaa jira laakiin waqtigan la joogo la iska iloobay balse intaan u gudagelin muuqaalkayga waxaan ka codsanaynaa janaalka subscribe saarto oo muuqaalka haddii aad ka heshana like inoo saarto wixii ra'yi aad qabtana commentiga hoose inoogu reeb sii share gareeyo la wadaaga asxaabtaada soona dhawaada saaxiibayaal waa tahay saaxiibayaal intii la socotay muuqaaladii hore ama saddexdii muuqaalii hore aan kaga hadalnay qaar ka mid ah jilayaashii Bollywoodka sagaashamiyadii caanka ahaa jir laakiin waqtigan la joogo la iska iloobo aan kusoo qaadanay ilaa iyo dhowr jilaa maanta muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa ama kusoo qaadan doonaa shan ka mid ah jilayaal sagaashamiyadii caan ahaa jir laakiin waqtigan la joogo la iska iloobo saaxiibayaal jilaaga ugu horeeyaan ku bilaabi doono waa jilaagii caanka ahaa jira ninka lagu magacaabo weeyaane Prithvi jilaagan hadda idiin muuqdo weeyaane Prithvi ayaa lagu magacaabo waxa uu ka mid ahaa aktaradii sagaashamiyadii ama horaantii sagaashamiyadii caanka ahaa jira weliba waxaa lagu xasuustaa aflaamta dhanka jaceylka ayuu inta badan kaga soo muuqan jiray markii la eego shirkadda caanka ah ama shirkadda aflaamta sameysay Bollywoodka ninka lagu magacaabo Prithvi waxa uu ka soo muuqday aflaam dhowr ah oo caan ah kuwa oo laga xusi karo ama ay ka mid yihiin aflaamta uu ka soo muuqdo waxaa ka mid ah filimkii caanka ahaa dilkiya kasar waa mid ka mid ah aflaamta jaceylka ee aadka loo jecleystay horaantii sagaashamiyadii weliba filimkaani waxaa ku jira filim ama aan dhehe heese aad u macaan badan oo ilaa waqtiganba aad loo xiiseeyay dhegeysigooda marka jilaanka lagu magacaabo Prithvi wuxuu ka mid ahaa aktaradii sagaashamiyadii ama horaantii sagaashamiyadii caanka ahaa jiray wuxuu ka soo muuqday aflaam dhowr ah oo ka mid ah filim lagu magacaabo Dilwale Ka Bina Hari sidoo kale aflaamta kale uu ka soo muuqdo waxaa ka mid ah filim lagu magacaabo Bandaf kaas oo hogaamiye u ka yahay jilaaga caanka ah Akshay Kumar marka jilaankan lagu magacaabo Prithvi wuxuu ka mid ahaa aktaradii sagaashamiyadii caanka ahaa jiray laakiin waqtigan la joogo la iska iloobo saaxiibayaal sheekadan qofka labaad ee taabanayso waa jilaaga lagu magacaabo ama mid ka mid ah jilayaashii asagana sagaashamiyadii caanka ahaa jiray waa jilaa lagu magacaabo Milandi Gunaji jilaaga Milandi Gunaji Soomaalidu qaar waxay u yaqaanaan Saalax Dheer qaar ayaa ugu yeero qaar atooraha geelkay dhahaan qaarba magac ay ugu yeeraan marka ninkan waxa uu ka mid ahaa asagana aktaradii sagaashamiyadii soo caan baxay ama ay aflaamta sameyn jiray weliba doorka caawinaada ama supporting actor ayuu inta ugu badan kaga soo muuqan jiray aflaamta ninkan lagu magacaabo Milandi Gunaji aflaam waaweyn ayuu ka soo muuqday saaxiibayaal aflaamtu ka soo muuqdana waxaa ka xusi karnaa filimkii caanka ah Soor kaas uu la wada jilaagii caanka ah Sinidool aflaamta kale waxaa ka mid ah filimkii Kabul hogaamiyaha ka ah ninka ama filimka lagu magacaabo weeyaan Farisaad oo 97 la daawaday sidoo kale aflaamta kale uu ka soo muuqdo waxaa ka mid ah Salma Badil Aage oo Ayub Khan hogaamiyaha ka ah oo asagna 97 la daawaday aflaam badan ayuu jilaagani ka soo muuqdo marka la eego sidoo kale waxaa jira filim uu caan ku yahay ka oo lagu magacaabo Fariib jilaagan lagu magacaabo ama aan dhehe Milandi Gunaji waxa uu ka mid ahaa asagana aktaradii sagaashamiyadii caanka ahaa jira laakiin waqtigan la joogo la iska iloobo saaxiibayaal sheekadani qofka saddexaad ee taabanayso waa jilaaga lagu magacaabo Barmita City asagana wuxuu ka mid yahay jilayaashii sagaashamiyadii caanka ahaa jira ninkan ayaana ka soo muuqdo aflaam waaweyn ay Soomaaliduba aad u wada garanayso aflaanta uu ka soo muuqdo markaan eegno ama aan eegno waxaa ka mid ah dhehe saaxiibayaal filimkii caanka ah Dilwale Dulhan Le Jayenge oo Shah Rukh Khan iyo Kajal ay hogaamiyaasha ka wada ahaayeen 95 la daawaday aflaamta kale uu ka soo muuqdo waxaa ka mid ah filimka caanka ah Diljaal ama Qalbi Xor ay waxaad u taqaana oo Ajay hogaamiyaha ka ah ninkan waxa weeyaan ninkii gabadha ku heystay ama gabadha yacni rabay inuu guursado ama filimkaasi ninka militarinimada ku jilay weeyaan hadda ninka idiin muuqdo ninka lagu magacaabo waxa weeyaan Barmita City asagana wuxuu ka mid ahaa aktaradii sagaashamiyadii caanka ahaa jiray weliba aflaamta kale oo ka soo muuqdo waxaa ka mid ah filimkii caanka ah Hero Hindustani ka hogaamiyaha ka yahay Arshad Warzi marka jilaagan lagu magacaabo Barmita City waxa uu ka mid yahay aktaradii sagaashamiyadii caanka ahaa jiray laakiin waqtigan la joogo la iska iloobay sheekadan qofka afraad ee taabanayso waa jilaaga caanka ah Atul Arjun Hodri ama Abinash waxaad u taqaanaba jilaagani waxa uu ka mid ahaa aktaradii sagaashamiyadii caanka ahaa jiro aflaam waaweyn ayuu ka soo muuqday haba uu caansanaaday aflaam uu ka mid yahay filimkii caanka ah ee Aatish kaas oo la daawaday sanadii 1994 Aatish waynu wada ognahay waa mid ka mid ah aflaamta Soomaalidu aadka u xiiseysay daawashadiisa waxa hogaamiyaha ka wada ahaayeen jilaaga caanka ah Sanjay Dutt Adidiya Banjoli sidoo kale jilaagani Atul Arjun Hodri marka jilaagan lagu magacaabo Atul Arjun Hodri ama Abinash waxa uu taqaanaba waxa uu ka mid yahay aktaradii sagaashamiyadii caanka ahaa jiray aflaam waaweyn ayuu ka soo muuqday saaxiibayaal aflaamta uu ka soo muuqdo jilaagan waxaa ka xusi karnaa ama laga xusi karaa filimkii caanka ah Hote Beer Hoge uu la sameeyay Jeke Sharif iyo Kajal waxaa la daawaday filimkaasi sanadii 1999 aflaamta kale waxaa ka mid ah filimkii caanka ah ama Karanti Fear oo uu la sameeyay ninkii xanaaqa badan ee lagu magacaabo Nanamba Tiger ama Yeshwant waxaad u taqaanaba
filimka 94 ayuu soo baxay. aflaamta kale uu ka soo muuqdo waxaa kamid ah filimkii caanka ah Hum Tumhare Sanam ee Shah Rukh Khan iyo sidoo kale Salman Khan hogaamiyaasha ka wada ahaayeen. Dinne Jise Abna Kaha oo kale ayuu ka soo muuqday. Jalaagan lagu magacaabo Atul Agnihotri hadda waxa weeyaan yani assistant director weeyaan oo director caawiye weeyaan jalaagani, waxaana u dhaxda gabar la dhalatay jalaaga caanka ah Salman Khan ayaaba sodoh u ah ninkan marka la eego lagu magacaabo Atul Agnihotri. haddaba jalaagani Atul Agnihotri asigana wuxuu kamid yahay jilayaashii ama aktaradii sagaashameedii caanka ahaa jiray, laakiin waqtigan la joogo la iska iloobay. inkastoo aflaam waaweyn uu ka soo muuqday jalaagani, haddana waxa uu kamid yahay aktaradii sanadii ugu dambeeyay, yani marka la eego doorka atoornimada ama atoor caawinimada xataa yani iska dhaafa ama ka yara gaabiyay. ninkan dhankaas iyo directornimada ama agaasinimada ama agaasimo inuu noqdo ama agaasimo caawiye ayuu u batay xaggiisa. inta ugu badan hadda waxa uu la shaqeeyaa jalaaga sodohda ama sodohgiis ninka lagu magacaabo Salman Khan ayuu inta ugu badan aflaamta uu kala shaqeeyaa oo door producer-nimo iyo waxyaabahaas ayuu kala shaqeeyaa. sheekadan qofka ugu dambeeyay taabanaysa waa jalaaga lagu magacaabo Kumar Groove waa mid kamid ah jalayaashii aadka loo jeclaa jiray bartamihii ilaa dhammaadkii 80-meeyadii 90-meeyadii xataa aflaam ayuu ka soo muuqan jiray oo caan ah oo ama ugu caansan aflaamta 90-meeyadii waxaa kamid ah filim lagu magacaabo Wall kaas uu la waday gabadha caanka ah ee Maduri Dixon. weliba filimkani waxaa ku jirta hees aad caan u ah Soomaaliduna ay aad u jecel yihiin. anigan xataa aan waagii yaraa oo markii shaleemooyinka aan ka daawo jiray dhanka showga marka la eego aad u xiiseyn jiray. heestaasna waxa weeyaan jaaka hutujse bukisna biyaari kartaa xoogaa yara aan isla fiirsano. heestaasi Soomaali badan ayaa jirto hadda inay iska iloobeen ayaa laga yaabaa, laakiin waqtigii hore aad u xiiseyn jiray. jalagan lagu magacaabo Kumar Groove waa mid kamid ah jalayaashii aadka loo xiiseyn jiray dhammaadkii ilaa horaantii 90-meeyadii. weliba ninkan inta ugu badan aflaamtiisa 80-meeyadii ayaa aad loo xiiseyn jiray. ninkan waxaa aad u ahaa ama ku daynsan jiray ama aad u taageeri jiray jalaaga caanka ah Shah Rukh Khan. Kumar Groove aflaam waaweyn oo jecel ayuu ka soo muuqday. aflaamtiisana inta ugu badan jecel ayuu u badnaayeen marka la eego. sida aflaamtiisa waxaa kamid ah magac ahaanba haddaad aragto film Lover lagu magacaabo, Romance film lagu magacaabo, Love Story film lagu magacaabo, Teri Qasam film lagu magacaabo. aflaamtiisa inta ugu badan aflaam jecel ayuu sameeyay jiray Kumar Groove. dadyoogii shaleemooyinkana ee 90-meeyadii daawan jiray ayaana inta ugu badan jalaagani xasuusta saaxiibay. haddaba jalaagani Kumar Groove asigana wuxuu kamid ahaa aktaradii 90-meeyadii la xiiseyn jiray aflaamtiisa waqtigan la joogo laakiin la iska iloobay. intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa saaxiibayaal xogtii aan kaga hadlaynay qaar kamid ah jilayaashii 90-meeyadii caanka ahaa jiray laakiin waqtigan la joogo la iska iloobay. fadlan haddii aad ka heshay muuqaalka like inoo saar, channelka haddii aad ku cusubtahana subscribe inoo saar, wixii ra'yi aad qabtana commentigoos inoogu reeb, sii share gareeyo labadaga asxaabtaada. waan ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkeenna.